ducadan waxa la akhristaa qof kasto qof jecel qofka uu jecel yahay marka uu ka safrayo tusaale ahaan caruurtaada markaad ka safraysid odaygaagii markaad ka safraysid odaygu markuu xaaskiisa ka safrayo qofku markuu caruurtiisa ka safrayo qof kasta oo qof jecel marka uu ka tegayo oo ay ilmaynayaan oo laysa sogootinayo oo garoonka laysku dhowaynayo ama marka waxa weeyaan laxdadii ugu dambaysay iyo embiriqsigii ugu dambaysay dadka isjecel ay waxa weeyaan kala tegayaan oo gaadhi kala raacayaan ama diyaarad kala raacayaan ama markaasi doon iyo markab ay kala raacayaan ducadan ayaa la akhristaa especially waxa akhrinaya qofka ka tegaya cidda uu jeclaa Allahu akbar ilaahay nama tuso ilaahay nagama dhigo kuwo waxa weeye maaragtay ka taga dadkii ay jeclaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa qof kasto aan jecelnahay inuu indhahayaga ka muuqdo agtayada iyo garbahayaga uu ka muuqdo mar walba biidnillaahi alkariim haddaba ducadu maxay tahay ducadan cajiibka ah inta aanan sheegin ducadan waxa weeyaan caloolgubadka ah inta aanan sheegin ducadan waxa weeyaan qalbiga taabanayso qof kastoo safraya oo ehelkiisii ka tegaya ama ubadkiisii ka tegaya ama ooridiisii ama zawjka xaaskiisii ka tegaya ducadan inta aanan ku taabsiinin ama aanan kuu sheegin ilaahay dartii waxaan kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka sheergaraysid loofta u badisid sidoo kalena 10 jeer koobi linki taabatid asxaabtaadana aad u dirtid commentigana aad waa halkii ina bahalkiiya ducada haddaba maxay tahay ducada waxaad odhanaysaa marka aad ka tegaysid dadka ehelkaaga ah ama dadka aad adduunka ugu jeceshahay famil ubad asxaab kulli waxaad odhanaysaa astawdicukumullah 3 jeer astawdicukumullah astawdicukumullah أستودعكم الله الذي لا يطيع ودائعه أنت صدرنيسا ودعاء عجيبة ودعاء فضد ودعاء وحوي قلبي تابضة ودعاء قفكم مركو إلمينيو وددكو جعلا كراعيو مركاسي محايرة أما الديارات أما قاري أما وحوي النوع كميدا قاديد أيال ربا إنو أخريو ومضحا أو كردن كددكو جعلا ودبنada uu ka dhunko dadka uu jeclaa biidnillaahi alkariim aad baa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu